madaxda maamulka gobolka iyo kan degmada iyo odayaasha dhaqanka ee degmada reer Ceelaf Weyn dhammaantiin marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib runtii maanta wax farxad weyn bay tahay inaan joogo maanta Ceelaf Weyn oo nabada oo maanta dadku wajiyadii mararka qaadka ku soo maray ama markii igu dambeysay inay maado Ceelaf Weyn ay ahayd waxaan oran karaa 4 sano ku dhawaad 2018 markii nabadeyntu ka socotay wararkaan la galay 8 habeen la galay iyo maanta de isbedelka muuqday waa wax weyn intii halkaan lagu soo noqday 10 jeerna wad garan karaysiin kolkaan halkaan yani midaan hogaaminayay waftiga xukuumadda walkii kelmadii la nuuriya naaleey waddanka u dhanaa madaxa dhaqameedkii Soomaaliland oo dhan ay u dhanaayeen labada reer ee maanta la leeyahay wixii laga sugayay la habsaameen harraa ka fadhiyeen labadii walaalaha ee maanta dhibtu ka dhaxaysanay isoo la dhageysanayay halka ma istihaab waan ugu joogay maalinta way inay naga dhamaatay yaan ku heshiinay alla si kama dhigay xogaa baa ka dambeeyay way si yar jiitantay alxamdulillah bacdo dhowr bilood kadib way dhamaatay taasoo taad ugu faraxsanay maanta inay maalinta sida xaaladda ku soo marnay xaaladda maanta sababtoo aan horreysay ugu faraxsanay waxa weeyaan de waxa la wax walba horta waxa ka horeeya amniga ka horeeya oo al-amn wal iimaan diinteena islaamka waxa tiriba al-amn wal iimaan waxa walba laga horreysay amniga kala doorta alxamdulillah dad nabadii haysaan horta waa marka hore ilaahay mahadi waan ku boorineynaa waan ku hambaleyneynaa marka labaad socdaalkii iyo ujeedadiisa waa la waramay waan haysaan warka oo naga soo horeeyo adduunyadii maanta warkii uu dheeraynaya marka intaan soo marnay oo la socotiin wixii aan meel walba gobol iyo degmo kasta baan kala haynay waa la socoteen wixii aan sidnay taakuleen hawshaan u soo baxnay dheenta abaartaasi saamaysay 3 gobol ee bariga Soomaaliland waddanku gobolada wixii gobolada ka hoos baxay way jiraan qarankeenu 6 gobol buu qaybsay guud ahaan marka hore oo 6 gobol doorasho la dhaha 3 waa bari 3 waa galbeed 3 bariga markii la soo sameeyay daraasad ee la soo wada maray waddanka ee guddigii anagu aan soo dirnay iyo hay'adii jamciyadda quruumaha nagala shaqeynayay soo raaceen ee la soo daraasadeeyay waxay la sheegay in dhibaatadu ay tahay koowaad ay 3 gobol ee bariga u badan tahay in aad u saameysay abaartaasi oo waliba mid biyood wali imka taagan imka dhibaato biyo la'aaneed oo roobkii sanad ku dhawaad aan roobkii aad u yaraaday runtii ku yaraaday gobolada bari alxamdulillah waxaan maanta maraynaa maalintii 7aad baan maraynaa annagoo madaxdii qaranka oo wasaaradihii iyo xafiisyada ka soconay 7 cisho ay shaqo ka socon laakiinse tuka weyn hayno inta aan ugu kuurgalayno dadka iyagii maartay dhibaatadu ka soo gaadhay ama ay culays ku hayso taan maanta 7 cisho u soconno iyo tu walba ka xoog badan oo ka ajar badan nooga ajar badan kuna faraxsan kuna wax daali wax ya caatamidna anaan dareemeyn maadaama aan arkayno wixii aan soo baxnay ahaa in dad iyo duuyo wixii halkay abaartaasi ay taabatay iyo calaf iyo caws iyo wax walba ay qiimeynay runtii waxa muuqata wali in dhibaato weyn oo xagga calafka ah iyo xoolo iyo maartay iyo dadba ay wali taaban laakiinse biyo la'aan laga wasimay halkaan ka soo bilownay maalintii koowaad ilaa maanta socono inta aad noo sheegteen baa meel deegaan walba nooga sheegay waan inta warka markii hore ku haynay iyo faahfaahin u helnay iyo indhaha ku aragno ceelkii shaqaynayay kii fadhiyay
kii xoolo badan ka cabayeen kii xoolo kooban ka cabayeen qol cid walba degaan kasta iyo degmo kasta intay u jiraan adeega biyo jiro wax badan baa noo soo kordhay sidaa laydin sheegana wixii horena waan maamulada waxu soo diraynay waan la xisaabtamaynaa wixii hanti sidnayna waan ku wareejinay maamuladii gobollada iyagaana markaa dee iyagiyo guddigoodii guddi gobol kastaba guddiga taakulaynta abaaraha gobolka waxaa ka guddoomiyaha gobolka ama barasaabka dhimasoo yaqaano hanti kastoo loo dhiibaya cid loo dhiibayaana hanti qof maamulaya ma jirto waxaynu ku maamulaynaa dhibaataa jirta wadajir baa lagu maamulayaa sidaad sheegteen sidaad u kala mudantihiin iyo dhulku siduu kala xagga biyalaanta u kala dhibaato badan yahay degaan walba iyo gobol walba isaas yaqaana annagu waxaan idinka martinahay keliya in raggiinan cuqaasha ee degaanka inaad sidaad u kala darantihiin iyo degaanka degmada aan joogno maanta ee ceelaf weyn waxaa laga yaabaa qaybiin biyo leedahay qaybna in biyaha ay bar yihiin qaybna in laguba ogeyn oo kala daran tahay idinkay mas-uuliyaddaasina saarantoo inaad maamulka iyo inta guddiga aad ku garab joogtaan oad ku taageertaan oonad ka dhigin xoolo baha lagu qaybsanayo oo kii biyo haysta iyo kii aan biyo haysanin aydan ka dhigin iyaan idinka codsanaynaa taakulaynta waxaad ku darsanaysaan dadku ma wada badhnee inaad ku darsataan oo laga rabaa xildhibaanada runtii degaankanna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan la socdaa in xildhibaano badan oo kamid yihiin saalax iyo giire iyo rag badan oo degaankanihi inay iyagoo ka qayb qaateen oo wixii taalkooda iyagoo dhankooda ka wadaan sababtoo maanta soomaalida waxay tiradaa far kelihii fool ma dhaqdo kol hadday dhibi dhacday ilaa maantaynu xorriyaddii la soo noqon ilaa maanta waxaynu halkaa kusoo gaadhnay nabadda iyo dimuqraadiyadda iyo waxaas waxaan kusoo gaadhnay waa isku tashi kolba dowladda iyo xukuumadda jirta iyo dadweynaheegu ay iskaashi ku oo socdaan dhib kasta iyo dheef kastana ay qaybsadaan marka maantana waa dhib adag oo haddii ilaahay baan ka rajeynaya ilahay naga soo jabiyo sidayna saa arkayno amaan u baranay waa kaliishii baynu galnay weliba oo xaaladdu sii adkaanayso marka waxaynu u baahanay dhammaanteen inaan gacmaha isku qabsanno inaynu ka wada gurmano ama iska taakulayno dhibaatadaasi taagan oo hadday sii xumaato dee ka sii adkaanaysa kana diyaargarowna insha allah anagu guddigan aan hogaaminayo waxaa la guddiga maareynta aafooyinka dabiiciga qaran kastoo dhisan wuxuu leeyahay hay-ado u khaasa u kala gaara oo hay-ad walba sidii xoolaha dee meesinka ninba meesinka loogu diray gaarka uu ka adag yahay ka uu leeyahay dowladnimaduna waa inkaasun marka guddigan dhan ee dhisanee taakulaynta abaarahu ama gurmadka abaaruhu waa hay-addaa waxay ku fadhidaa la yidhaahdo hay-adda maareynta aafooyinka dabiiciga markay dhibaata dhacdo guddigaasaa la dhaqaajiyaa marka kelmad oday yidhi waxaan jecel lahay caaqil halka hadlaya wuxuu ihi haddaan laamiga iskaga mari doontaan aanadnaba ku leexanay degaanadeeda waxaan isleehay dalka somaliland ama gobolka sanaag ama saddex gobol ee adhaado maraynay way ka wen yihiin meel madax socotaa ay wada mari karto way ka wen yihiin waxaan anagu ku dadaalaynaa in saddexdaa gobol se u dhan yihiin inaan gobol walba degmo saambala aan ka marno laakiinse dhulku ka ballaadhan yahay dhulkaan soo aragnay anagu qudhadu waxay noo hayd waayaarnimo iyo dalbarasha noo hayd intay galbeedka ka timida ibraahim iyo kamid ah xildhibaan ibraahim iyo aniga iyo rag badan ku jira dalbarashana way noo hayd dee degaanka intaa leeg ee weliba gobolka la dhaha sanaag uu yahay labada gobol ee kale ee bariga marka la isu geeyo baaxadooda iyo gobolka wax islekaana isleehay sanaag baa islekaanaya hadduuna soo ka badan weliba markaas suuragal ma noqonayso inaan alaagoobo marno laakiinse waxaan ognahay sidaa wasiirada sheegeen xaaladda iyo degaan walba wuxuu ku nool yahay iyo dhibta haysata
waan la socnaa sababtoo ah haddaan madaxda qaran ku siraysannahay waxaa noo jooga gobol walba madaxweyneha noo jooga madaxweynahaasina waxaa kasii hooseeya wasaaradihii cidda naga wakiilkahayd waxaana kasii hooseeya guddoomiyaal degmo guddoomiye ku-xigeenno xoghayayaal organ dhana nidaam dhanoo dhisan oo ilaa le biyotoni ayaa dee noo jooga deegaanada gobolada iyo degmooyihi meel walba marka war isu keesa garin ma jiro waagii beryaba wixii waagu ku beryey iyo meeshii qaraf laga yidhi iyo meeshii maaragtay qof lagu xagtayba warka waan haynaa oo isma mooganin sidaa u sheegay wasiir sulub intii aan degaan soo maraynin wax abaartu baa lagala hadlaye hawl kaloo loo gudbaya ma jirin laakiinse idinku duruuftan gaarkaad lahaydeenoo ilaa tii waktiga caadiga ahee horumarka laga hadlayo iyaad laga hadasheen alxamdulilah laakiinse dee wixii la dhihayo waa lanii sheegay oo ugu talagashay deegaankan loogu talagalay biyaha ugu cabasho badan oo inta badan dalkooda saas wada dhibaataysaya ama bariguba biyahaas ama ku qaraaraadaan ama habala aadaane culayska ugu meelo waxay leedahay meel kale ma leh culayska u weyna bari saaran waxa weeyaan dhulkii halkan buuba joogaayo markaa dhulka aad ku hadlaysaan aad leedihiin degmo kastoo soo marnay ta ugu ballaaran baan nahay waan soo aragna wada ballaaran yihiin annagu se waxaan ka niminay in yaro qoqobay oo waddanka intii yaro ugu koobnayd ayaa ka nimid oo dee waragga idin faanaya baa isla markaa dee dhulka mana faan bay malaa kuyi jiraan dhahnaa waa dhulka iska qarsada anagu dhulka intana ma haysana anagu iska qarsado marka aad iyo aad baad mahadsantihiin sida waasa noo soo dhaweysay waad ku mahadsantihiin qoreecaad noo diyaarsan saakaan soo kalhanay waad ku mahadsantihiin xildhibaanadiina iyo maamulkiina degmada gebi dhammaantiin aad iyo aad baan idinku mahadnaqanaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu